bismillaahir rahmaanir rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal kulanti wanaagsan meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada akhbaaraadka caalamka ood kala socotaan Caalam Media 24. anigoo Cali Rashid Maxamed aadi warramayo. akhbaaraadkana maanta waxaad ku maqli doontaan cabsi badan oo soo wajahday madaxda Israa'iil qaybo ka mid ah oo aad uga cabsi qaba go'aanka ka soo bixi doona maxkamadda ICC ee caalamka. cabsida la xiriirtay dambiye lagu soo ogo madax Israa'iiliyiin sidoo kale Mareykanka oo ka hadlay go'aanka la filayo ICC inuu ka soo baxo dhismaha dowlad Falastiin oo shuruud lagu xirayo. daawadayaal barnaamijkeena qodobadaas ayaan hadla doonaa mar kale kusoo dhawaada Caalam Media 24. daad nagu cusubta YouTube-ka subscribe noo saar haddii hore noo joogto video noo share garee. xilli muddo 200 oo maalin ka badan dagaalo ay ka soconayaan magaalada Gaza duqeymo xooggan Israa'iil ay ku hayso Gaza haddana ay qorsheynayso in weerar ku qaado qayb ka mid ah Gaza dhulka lagu magacaabo oo la yiraahdo magaalada Rafah ahna marinka isku xira Gaza iyo Masar ayaa waxaa soo baxaya cabsi xooggan oo xilligan soo wajahday madaxda Israa'iil. maxkamadda caalamka ee ICC loo yaqaano ayaa ku dhawaaqday inay qorsheynayso in dambiye lagu soo ogo madax ka tirsan maamulka Yuhuudda. labada maxkamadood ee ICJ iyo ICC oo labaduba la maxkamadood caalamiga qaramada midoobay hoostaga sidoo kale tan hal magaalo ku wada yaala ayaa doorkoodu u yahay inay maxkamadeeyaan dambiyada dagaalka waxyaabaha la xiriira. waxay inta badan xooga saartaa ICJ muranka u dhaxeeya laba dowladood hase ahaatee ICC ayaa xooga waxay saartaa dambiyada dagaalka si lamida si shakhsi ah ay ugu maxkamadeyn kartaa qof kasta oo lagu eedeeyo dambi dagaal inuu galay. ICC ayaan xilligan la filayaa inay go'aan soo saarto la xiriireen madax ka tirsan maamulka Yuhuudda la eedeyn doono kuwaas lagu eedeyn doono in dambiye dagaal geysteen. Netanyahu iyo wasiiradiisa dagaalka qaybo ka mid ah taliyaasha ciidamada ayaa cabsi badan ay soo wajahday. Mareykanka iyo Israa'iil kama mid ahaan wadamada saxeexay ICC sidoo kale tana haddii wadamadooda ay joogaan laguma soo qaban doono laakiin go'aanka ay soo saartay waxa laga fulin karaa dhammaan wadamada saxeexay go'aanka ICC. wadamada ICC xubnaha ka haddii uu tago qof ka tirsan Israa'iil oo dambi dagaal lagu soo oogay xaq waxa uu yeelanayaa in qofkaasi uu soo xiro. waxaana cabsi badan xilligan ay soo wajahaysaa madaxda Israa'iil kuwaas oo safaradooda xitaa hawada inay maraan wadamo kale aad uga cabsan doona. Netanyahu ayaa la sheegay inuu telefoon badan uu ku wacay madaxda Mareykanka kuwaas oo kala hadlay si lagu joojin lahaa go'aankaas laakiin dowlad Mareykanku ma joojin karto. saraakiil hadashay Mareykanka ayaa sheegay in ICC aanay xaq u lahayn inay go'aan ka soo saarto sidoo kale tan dambi dagaal ay ku eedeyso madaxda Israa'iil. madaxda Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka waxay ka mid yihiin baabi'inta iyo si lamid ah xasuuqa ka soconay magaalada Gaza. lima dhicin madaxda Israa'iil in hore loogu eedeeyo dambi dagaal inay galeen hase ahaatee kiiska la xiriira dambi dagaal in laga galay magaalada Gaza ayaa bilihii u dambeeyay horyaalay maxkamadaha caalamka. xilligan ayaana la filayaa in go'aan wanaagsan oo u wanaagsan muslimiinta iyo Falastiiniyiinta uu ka soo bixi karo ICC kaasoo la xiriirin la eedeeyo madaxda Israa'iil. Mareykanka iyo Israa'iil marka laga yimaado sidoo kale caalamka dhan ayaa u dhag taagaya waxyaabaha ka soo bixi kara. wadahadalka xabad joojinta lagu raadinayo weli soconaya inkastoo rajo wanaagsan laga qabo haddana wararka ugu dambeeyay soo baxay ay sheegayaan in madaxda Xamaas ay halkoodii hore ku dhagan yihiin oo la xiriirta in xabad joojinta la filayo in la gaaro oo hadda la sheegay inay tahay 40 maalmood ayagoo ay dananayeen inay tahay xabad joojin rasmi ah oo guud ahaan Gaza laga hirgeliyo sidoo kale tan ciidamada Israa'iil ay isaga baxaan. wararka sidoo kale soo baxay waxay ahayd in lagu dadaalayo si lagu dhisi lahaa dowlad Falastiin ay yeelato oo rasmi ah hase ahaatee xilligan shuruudo ayaa soo baxaya. wasiirka arrimaha dibadda Ingiriiska ayaa ka mid ah dadka ka hadlay shuruudahaas wuxuuna sheegay in dowlad loo dhiso Falastiin oo Israa'iil ka dhinac dhisan shuruudda koowaad ku xiran ay tahay oo reer galbeedku ay danaynayaan in madaxda Xamaas ay guud ahaan isaga baxaan magaalada Gaza. Xamaas iyo ciidamadeedana suurtagal kama ahan inay ka baxaan magaalada Gaza haddii ay baxayaan 200 oo maalmood kuma haysa dagaalamayn ka badan. xilligan haddii shuruudaasi ay xoojiyaan reer galbeedku macnaheedu waxay ka dhigan tahay dowlad Falastiin ma la dhisayo shuruudda lagu xirayana waxay noqon doontaa Xamaas ayaa urur argagixiso iyagana halkaasi ku sugan. carabtana in badan oo ka mid ah way ka gadmaysaa fikirkaasna waa mid ay la dhacsan yihiin dowladaha Masar, Sacuudiga iyo Imaaraadka. hase ahaatee xilligan dadaalka la waday ahayd in la dhiso dowlad Falastiin haddii shuruudaasi la hordhigo waxay muujinaysaa in xilligan horumar badan aan la gaari doonin dadaaladii lagu dhisay dowlad Falastiin halkaasi ay ku burburi doonaan. maalmaha soo socda iyo saacadaha soo socda waxaa aad looga dhursugayaa go'aanka ka soo bixi doona ICC. haddii go'aankaasi uu soo baxana waxay noqon doontaa in badan oo ka mid ah madaxda Israa'iiliyiintu in safaradoodan ay joojiyaan hase ahaatee lama filayo in ficilada dagaalka ay hakin karaan maadaama Mareykanku uu
gadaal ka taageerayo una sheegay cid soo qaban karta inaanay jirin daawadayaal intaasina qodobkeennii koobnaa aan ku soo afmeeraya